afka ura waa dhibaato sababi karta murugo nafsi ah. Waxaa jira dhowr sababood oo suurtagal ah loo daweyn karo. Qof kasta way ku dhici kartaa neefta xun ee afku. Waxa lagu qiyaasaa in hal qof ay ku dhacdo 4 qofba. Neefta xun ee afku waa sababta saddexaad ee ugu badan, taas oo ay dadku u raadsadaan daryeelka ilkaha marka laga reebo suuska ilkaha iyo irid xanuunka. Daweynta guriga ee fudud iyo isbeddelka qaab nololeedka qofka sida nadaafadda ilkaha oo la wanaajiyo iyo joojinta sigaar cabista ayaa badanaa ka saari karta neefta xun ee afka. Biyaha daraasado ayaa waxay muujiyeen in qaleelka afku badanaa uu keeno in afku uro. Candhuufta ama saliifada waxay door muhiim ah ka ciyaartaa nadaafadda afka. La'aanteed bakteeriyada ayaa korodha waxaana sababtaa in afku uro. Afkaaga ayaa si dabiici ah u qalalan intaad huruddo, taasina waa sababta neefta ay caadi ahaan aroortii u xumaato. Ka hortagga afka qalalan adoo sare u qaadaya heerka biyaha jirka. Biyo cabiddu maaha cabitaano ama cabitaano sonkor leh maalintii oo dhan waxay gacan ka geysan doontaa dhiirigelinta soo saarka candhuufta. Ujeedka ayaa ugu yaraan 8 koob oo biyo ah maalintii. Kaliya liin macaantu maaha cabitaan caafimaadka wanaagsan, balse sidoo kale waxay horumariyaan nadaafadda ilkaha. Dad badani waxay yeeshaan neef aan wanaagsanayn maxaa yeelay ma soo saaraan candhuuf ku filan si ay u meedhaan bakteeriyada urta keenta. Daraasad la sameeyay ayaa muujisay fitamiin C uu gacan ka geysan karo kordhinta soo saarka candhuufta, taas oo qofka ka caawin karta baabiinta af urka. Liinta waxaa ku badan fitamiinkan zinc, milixda ama cusbada zinc-ga leh oo ah qayb ka mid ah dawooyinka afka lagu lolado iyo xanjooyinka la calaaliyo waxay ka hortagi karaan urta xun ee afka. Maadada zinc waxay hoos u dhigtaa xaddiga isku dhiska sulfarta ah ee ku jirta neefta. Baaritaano la sameeyay ayaa lagu ogaaday isticmaalka joogtada ee zinc ay waxtar u leedahay yareynta af urka. Tufaaxa daraasad lagu kalsoon yahay ayaa lagu xaqiijiyay in tufaaxa qayrin uu saameyn xoog leh ku leeyahay neefta aan wanaagsanayn ee toonta iyo basasha. Tufaax ma oo kaliya mid marka la calaaliyo ilkaha ka qaada dahaarka ku samaysma, balse sidoo kale wuxuu afka ka caawiyaa inuu soo saaro candhuuf, taas oo si dabiici ah ula dagaalanta neefta qarmuun. Caanaha waxaa si wacan loo fahansan yahay inay dawo u yihiin urka xun ee afka. Cilmi baaris ayaa muujisay in cabitaanka caanaha kadib cunista toonta iyo basasha ay si weyn u hagaajin karta neefta qofka. Si aad u isticmaasho qaabkan, cab caanaha ay ku yar yihiin dufanku. Yogurt ama caano fadhi waxaa ku jirta bakteeriya caafimaadka waxtar u leh, taas oo loo yaqaano lactobacillus. Bakteeriyadani waxay ka caawin kartaa la dagaalanka bakteeriyooyinka waxyeeleyn kara caafimaadka qofka ee qaybaha kala duwan ee jirka sida habdhiska dheefshiidka. Daraasad ayaa hoos ka xariiqday in yogurtka sidoo kale uu ka caawin karo hoos u dhigidda af urka. Cilmi baaris la sameeyay 6 toddobaad kadib cunada yogurt, 80% ka qaybgalayaasha daraasaddan ayaa waxaa yaraaday afurkii. Probiotics oo ku jirta yogurtka ayaa ah mid saameyn xooggan leh, hoosna u dhigaysa darnaanshaha af urka. Baaritaano caalami ah oo la sameeyay ayaa muujiyay in baking soda oo sidoo kale loo yaqaan sodium bicarbonate ay si wax ku ool ah u disho bakteeriyada afka. Tani waxayna tusaysaa in dawooyinka ilkaha lagu cadaydo ay ku jiraan maadooyin badan oo hoos u dhigaya af urka, waana sababta loogu daro baking soda dawooyinka afka lagu nadiifiyo. Khudaarta cagaaran waxaa ku jirta aashito ama acid dabiici ah oo loo yaqaan acetic acid. Bakteeriyadu badanaa ma jecla inay ku korto deegaan aashito ah, sidaa darteed alkoosha afka lagu nadiifiyo waxay yareyn kartaa koritaanka bakteeriyada afka, taas oo keenta af urka. Tanina waa fursad muhiim ah maxaa yeelay waxa meesha ka saari kartaa neefta xun ee afka. Sigaarka waxyaabaha tubaakada laga soo saaro ha ahaato sigaarka, xanjada iyo waxyaabaha kale dhammaantood waxay qofka u horseedi karaan af urka, waxaanay ku keeni karaan xaalado caafimaad darro oo aad u daran. Waxay dhaawacaan nudaha ciridka waxaanay sababaan xanuunada ciridka ku dhaca.